maalin kastoo isniina buu nabigu yiri maalin kastoo khamiisa ayaa acmaasha adoomadu ay sameeyeen wanaagsan ilaahay la horgeeyaa adoon kasti oo ilaahay cibaadadiisa aan cid kale la wadaajin dambiga ka dhacay ilaahay waa u soo dhaafaa ilaa laba adoon buu rasuulku laba adoon dambigooga lama dhaafo camalkoogana ilaahay hortiisa laguma furo ilaahay wuxuu yidhahdaa labada camalkooga u celiya dambigoogana ma dhaafayno ilaahay dhexdooda ka heshiinayaan in dhexdooda islaax ka ridayaan mooyaane kaanat baynahuma shaxnaabu nabigu yidhi laba adoonoo dhexdooda cadaawtinimo iyo buqdi iyo isnacayb dhexdooda uu ka jiray camalkooga ilaahay jalla wacala loo geyn maayo dambigoogana dhaafi maayo celiya buu ilaahay dhaa kuwa camalkooga ha ii keenine ilaahay isa saamaxayaan iyaka dhexdooda waa inaan inagu sacfinaa waa inaan isku naxariisannaa waa inaan noqonnaa sida ilaahay sidii nebigeennu yidhi almu'minu lilmu'mini kalbunyaan yashuddu bacduhu bacda mu'minku mu'minka kale wuxuu ku yahay dhis mu'miniintu sida dhagaxda dhisku ay dhagaxba dhagax u haysto ayay muslimiintu isku haystaan way isxoojinayaan way isku kaalmaynayaan way isku naxariisanayaan way isku damqanayaan way isasturayaan addoon walaalkii adduunka dusheeda ceeb uu ku arkay uma qariyo ilaa hadduu astura buu nebigu yidhi isagana maalinka qiyaamaha ceebigiisa ilaahay asturaya walaalkaa ceebtiisaan maanta qarisay maalinka qiyaamahee banka qiyaamaha khalqiga lagu fadeexadayn doono ayaa ilaahay ceebtaada ku asturi doonaa addoon mu'mina ayaa ilaahay u yeedhi doonaa uu soo dhowayn doonaa ilaahay raxmaddiisa iyo sadrigiisa ilaahay huwin doonaa markaasuu ilaahay odhan doonaa addoonkii hebel hebel ahaayo dembiga badnaa ma tihid markaasuu leeyahay haa ma garan dembigii maalintii halka aad ku samaysay ma garan markaasuu leeyahay haa markaasuu rabbulciza odhanayaa adduunka dusheediina waan ku asturo cidna kuumaa sheegin maantana dembigaaga waan dhaafee kitaabkaaga gacanta midi ka qaado sucaal odhan doonaa kalimatu tayibatu sadaqa kelmadda wanaagsan waa sadaqad salaanta faafi afshu salaam wa atcimu طacaam wasilu larxaam wasalluu billeyli wannaasu niyaam tadkhulu ljannata bisalaam waxau nebigu yidhi war salaanta dhexdiinna faafiya dadkana cuntaysiiya riximkana xidhiidhiya habeenkii dadku markay hurdaanna kaca oo tukada jannada rabbigiin buu nebigu yidhi nabadgelyaad ku galaysa